waxaan islaa atraahid miskiinka maxamed abiib shaydaan baa afka iigu tuuray miskiinka samaroon horta xaal baan ka bixinayaa kun jeer baan xaal ka bixinayaa wadnahaynaga taallaa samaroon wadnahaynaga taallaa ma aha dad laakiin dee aanay shaydaan keenay ninka isaga laftiisaa shaydaana in aad yasitaan reerka samaroon aad yasayso oo aad leedahay dee somalilan waxba kama aha oo yasitaan ay ka ahayd bal ka warran dadka fikirka aaminsan balkayaaba samaroonta ku jiro sina noogama qabato inaan dhiraano waxaa iyo xulowtoona dhinacayga waxaa ku sugan siyaasi jaamac shabeel oo aad badankiin wada garanaysaan maalnimadii shalay ahayd wuxuu jeediyey hadal dadka siyaabo kala duwan ay u qaateen hadalkaasoo ahaa aniga ma waxaad moodaysaa miskiinka reer samaroon dadka ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyey hadalkaas jaamac shabeel shalay jeediyey bal waxaan weydiin doonaa hadalkaas iyo shalay waxa ku kalifay arrintaasi jaamac soo dhow hadalkaas horta hadal shaydaaniga keenay buu ahaa waxaan islaa atraahid miskiinka maxamed abiib shaydaan baa afka iigu tuuray miskiinka samaroon horta xaal baan ka bixinayaa kun jeer baan xaal ka bixinayaa khayru khadaa'uuna tawaabuun baa la yidhi kuwa khaldama ee khaladkooda ka soo noqda ayaa u khayr badan khalad buu ahaa aniga laftaydu markii aan dhegaystay aan dib u dhegaystay markii dadku soo garaaceen hadalkalaa tiri muxuu ahaa ayaan dib u baanay hadalku dib baan u dhegaystay aniga laftaydu baa isla yaabay oo in hadalkan maxaa kaa keenay samaroon waa reer ballaaran waa reer weyn waa reer sharaf leh hadalka iyo xulowtoonaha reer u qalmo maaha ama iga qabta aniga ina dhahdo sharaf baanu hayaa barkayaabana dee samaroontaa barkayaaba samaroonta ku jiro sina noogama qabato inaan dhiraano waxaa iyo xulowtoona marka cid kasta oo dhibsatay hadalka waxaa ka siinayaa xaal cid kasta oo khalad u aragtayna raaligelin baan ka bixinayaa shaydaan baa iga keenay waxaan ku talagalay muu ahayn 100 jeer hala iga raalli ahaadaan le jaamac dadka qaar baa waxay u qabeen hadalkaas in aad yasitaan reerka samaroon aad yasayso oo aad leedahay dee somalilan waxba kama aha oo yasitaan ay ka ahayd bal ka warran dadka fikirka aaminsan ada fikir khaldan bay aaminsan yihin ana shaydaan iga keenay inay ka dhigtaan dello ma noqonayso samaroon somalilan waxa ka guddo iyo waxa ka gasho waa la ogyahay isaaqanu markay isqabsadaan timaa isku martaan cidda u soo gurbatee kala qabataa waa iyaga dowladnimadan dambana meesha lagu soo dhisay waa boorame dadkii u adkaystay bay ahaayeen 3 bilood wixii martiya dul fadhiyey gobonimadoodu waa taa samaroon ma qabato ereygaa gafku shaydaanku iga keenay iyo xitaa in la yeeso mowqifkooda wadnahaynaga taallaa samaroon wadnahaynaga taallaa ma aha dad laakiin dee aanay shaydaan keenay ninka isaga laftiisaa shaydaana aanay shaydaan keenay sii wadwadaa isaga laftiisaa shaydaana laakiin samaroon waa dadkaygii waa dad sharaf leh waddadaanu isku mid nahay waxaanu nahay unbay yihiin haddaanu xunahayna xumi haddaan wanaagsan yihin laakiin hadalka shaydaan baa keenay in laga faa'iidaystana maya waxaan leeyahay shaqo kale yeesha kuwii ka faa'iidaysanaya ku meeraysanayo ka faa'iidaysta damiirkaygii baa ii diiday inaan kusii adkaysto kusii taagnaado damiirkaygii baa diiday waanigaa isu soo taagay tv-ga waanigaa raaligelinta ka bixinaya markaa ku meeraysanina anaaba u arkay inuu xumaayo khalad ahaay jaamac weli maxamed abiib oo aad u hadlaysay 24 saacadood ayuu weli xidhan yahay bal xadhigiisa iyo weli 24 saacadood uu xidhan yahay bal ka warran waa sharci darro waa dastuurkii oo lagu tuntay dembi haddii loo hayo dembigaa waxay in marka lasoo cadeeyo lasoo gunaado golaha wakiiladu loo gudbiyo golaha wakiiladu haddii dembiga arkaan difaaci maayaana way ku qaadayaan xasaaraddan qaadi maxkamadna waa la geynaya laakiin in xildhibaana in airbortka laga soo qafaasho oo weliba jeel la geeyo kii hore wuxuu ahaa CID la geeyey oo dee isteeshnadii meelaha waa la yargeyn karaa laakiin ilaa ma dheera jeelka ma dheeri la geeyaa adeer waa sharci jabi wey waa gardarro wey waa ku tumasho sharci wey
wax la aqbali karana maaha anigana shalay calada madheerada markii laygu madheeraa la geeyey calada ka calooday shaydaanku afkaygu calada iyo shaydaankuna waa walaalo caladii shaydaankuna waa walaalo calada ka calooday madheerada la geeyey ayuu shaydaanku afka igu tuuray sabaroonta laakiin waa khalad weeye waa sharci darro waa gaf sharci waana in sida ugu dhaqsaa badan xoriyadiisa lagu socdaa fara laga qaada